dhibaatooyin aad u fara badan ayaa ka hor imanaya marka aad doonaysid inaad wajahdid caqabad. marka ay kaa dhab tahay waxa aad hiigsanayso waad gaadhaysaa marun, sababtoo ah ma niyad jabisid oo waad ku soo celcelinaysaa waqti walba. badiba dadkeena way la yaabaan qofka ku soo celceliya waxyaabaha uu doonayo. waxa ay jecel yihiin inuu faraha ka qaado marun. waad ku liibaanaysaa ku soo celcelinta badan ee waxa aad doonaysid. sida kaaga muuqata ninkan wuu dhacayaa, dib ayuuna u soo boodayaa. saaxiibadii way isdhiibeen, laakiin isagu ismuu dhiibin. dhacayay, wuu toosayay, wuu soo kacayay, dib ayuu u dhacayay. hadeer wuu dhammaystiray, caada ayuu u soconayaa, wuuna guulaystay. inuu hamigiisa ka dhabeeyo waxa uu u soo maray dhibaato aad u fara badan. ugu dambayntii wuu dhammaystiray halkii ay saaxiibadii ugu horrayntiiba ka hadheen. sidaas si lamida ayuu qof walba uga dhammayn karaa hamigiisa, waxaana ay ku xidhan tahay inaad rajadaada quruxda badan wanaajisato. aad baad u mahadsan tahay walaal. like saar fiidiyowgan, channelkan xigmad bookis, subscribe saar haddii aad ku cusub tahay saaxiib.